بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدن ريالي مروين ملكية مهموس وين بيتهاي إن المال تكسو قيب قلو مناسبة بلارن لغو حصايا قبدي ديوان قرين تعود بحياشا كقبصوبة قولة جمهورية السومالان مدد ودحيسي لحية لباتكي جنوري لبكون يلحية طبانكي إلى لباتكي سبتمبر 2016 gunaradka iyo dhameystirka mashruuca diiwaan gelinta codbixiyaashu waa galad eebe iyo guul soo hoyatay guud ahaan qaranka Soomaaliland waa guul soo hoyatay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka xorta ah ee ka tisqaaday kaygeena hooyo waa guul soo hoyatay xisbiyada iyo guddida doorashooyinka qaranka waa guul xaqiiqsay xukuumadda aan galwareerka ka ahay ugu horeyn waxaan hambaliyo bogaadin u diraya u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka doorka iyo dadaalkii ay ku lahaayeen taabagelinta diiwaangelinta marka labaad waxaan ku hambaliyeynayaa shacbi weynaha Somaliland sidii xilkasnimada xamaasadda iyo xasiloonida lahayd ay uga qayb qaateen diiwaangelinta dalka ka dhacday arrintani waxay dabalka ka rogtay bisaylka iyo baraaruga bulshada Somaliland waxay ka markhaati kacaysaa inay Somaliland tahay dal madax bannaan oo horumar weyn ka sameeyay nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka xisbiyada badan taasoo aan ka tisqaadin in badan oo ka mid ah qaaradda Afrika dhinaca kale waxaan uga mahad celinayaa guddida doorashooyinka qaranka sida ay mashruucan uga qibir dhaliyeen sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa dalalka deeq-bixiyaasha ah aynu saaxiibka nahay ee UK iyo EU midowga Yurub taageeradii ay naga siiyeen diiwaangelinta codbixiyaasha waxaanu nahay ummad gob ah oo aan aqoon abaalka dhaca waxaanu nahay ummad aan ka gedmin cadowgooda iyo nasteexooda Soomaalidu waxay tiraahdaa libax nin galaday iyo nin galayba waa og yahay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay nagu leeyihiin talo iyo tusaale tilmaan waxaan u haynaa qadarin iyo ixtiraam weyn waxa ayna hatiraana waan uga mahadnaqaynaa hase yeeshee waxaa dhacday in saaxiibada arrimaha qaarkood ay ka yeeshaan aragtiyo kala duwan hadda waxaanu aaminsanahay in dal waliba uu arrimaha gudihiisa cid waliba uga xoogaalsan yahay ugana jeclo badan yahay kala reebista labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiiladu waxay salka ku haysaa danta guud ee qarankan hogaamiyahan waxaa waajib ah inaan ka hormariyo wax kasta midnimada iyo wadajirka ummadda waxaan doonayaa inaynu wax kororsano iskana ilaalino wixii hagardaamo inoo keenaya miisaaniyadda iyo kharashka doorashooyinku waa waajib qaran oo inaga saaran ummad ahaan sidaa darteed mashruuca xaqiijinta diiwaangelinta iyo doorashooyinku saaxiibada waxay inaga taageerayaan waa mid Somaliland leedahay waxaa lagama maarmaan ah inaynu u qorshayno sidii mustaqbalka dhow xukuumadda Soomaaliland u bixin lahayd dhammaan kharashaadka doorashooyinka ku baxa waxaa iga go'an in doorashada madaxtooyada ay ku qabsanto 28-ka bisha 3aad 2017 talagalkii hore wuxuu ahaa inaynu bixino 25% qarashka diiwaangelinta iyo doorashooyinka hase yeeshee waxay xukuumaddu bixisay 60% qarashkii ilaa hadda ku baxay diiwaangelinta maantana qarashka xukuumadda looga baahan yahay waa 8 milyan oo doolar oo taasoo u dhiganta 80% mashruuca doorashada madaxtooyada waa culays dhaqaale balse waajib ah inaan isku tashano xukuumaddeenuna daboosho kharashka gudda doorashooyinka qaranka waxaan ku dardaarmayaa
inay doorashada xilligeeda ku qabtaan kuna dadaalaan cadaaladda iyo hufnaanta maamulka doorashada wabilaahi towfiiq aad iyo aad ayaan waxay ku shaqeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo shahaadashada sidii uu ugu dhiirigeliyay uga qayb qaatay diiwaangelintii loo soo dhaafay